waxaa go'aaminaya falka mise diinta qofka uu haysto. warbixintan waxaan ku eegaynaa sida loo sunto ama loo kala calaamadiyo falalka argagixisanimo marka uu geysto qof magac muslim sita iyo marka kale. gaar ahaan habka aan halka jid ama halka waddo ku socon ee arrintaa loogu magac bixiyo Mareykanka iyo meelo kale oo dunidan ka mid ah. We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. tusaalaha koowaad haddaynu soo qaadano Dylan Roof oo ah xagjir cunsuri ah oo cadaannimo u dirir ah sida uu yiri wuxuu doonayay inuu bilaabo dagaal Israa'iil wuxuuna kaniisad ku dhex toogtay 9 qof oo madow ah. kaniisad ku taalla magaalada Charleston balse argagixiye looguma yeerin warbaahinta iyo waliba hay'adaha sharci oogista toonna sida FBI. nin asal ahaan Pakistan ka soo jeeda oo la yiraahdo Jubair Ahmed waxa lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah sanadii 2012 kadib markii uu sameeyay muuqaal YouTube ah oo kooxda mintidka ee Lashkar Tayyiba ee dalka Pakistan ku saabsan. dhanka kale haddaynu eegno ka waran ninka la yiraahdo Jared Lee ninkani waxa uu 2012 dilay haweeneydii Arizona ugu jirtay Congress-ka Mareykanka waa Gabrielle Gayford iyo 8 kale loolama dhaqmin sida argagixisay nidaam diid ah. waxa kaliya lagu soo oogay dacwad la xiriirta dil iyo isku day dil. Javid Iqbal oo muslim ah oo New York degana waxa lagu xukumay 6 sano oo xabsi ah kadib markii la yiri waxa taageerta argagixisada muxuu sameeyay kaliya waxa uu dadka u sahlay inay daawadaan TV-ga Xisbullah ee Almanar TV. tusaale kale Robert Doggett oo isku dayay inuu weeraro muslimiinta New York iyo xarumahooda laguma magacaabin argagixiye waxa kaliya lagu eedeeyay inuu ku tacadiyay xuquuqda madaniga ah maadaama uu burburin lahaa hanti diimeed. nin farmashiista ahaa oo la yiraahdo Tariq waxa lagu xukumay 17 sano oo xariga kadib markii lagu helay inuu taageero u muujiyay argagixisada. muxuu sameeyay wuxuu turjumay muuqaalo dacaayad ah oo ay samaysay kooxda Al-Qaacida taas oo ay dadka qaarkood ku doodeen inay ka mid tahay xorriyatul qowlka. waxaa jirta halku dhig caan ah oo ay reer galbeedku isticmaalaan oo oranaysa muslimka oo dhammi maaha argagixiso balse argagixisada oo dham waa muslim taasoo been cad ah marka aad xisaabta ku darto inta aynu soo sheegnay waqtigan. So is there a double standard? Not if you're Fox News. Not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslim. dhinaca kalena tirakoob la sameeyay ayaa sheegaya in tan iyo 12 September ilaa 2015 ay kooxaha xagjirka ah ee cadaannimo u dirirka ahi Mareykanka ku dileen 48 qof taasoo 2 jeer ku dhawaad ka badan kuwa lagu eedeeyay xagjirka muslimka sheegta oo dilay 26 qofood. dhacdooyinka noocaas ah intii ka dambeysay iyaguna xisaab ma leh oo ay sameeyeen xagjirka cadaannimo u dirirka ah ama kuwa arrimo kale u dagaalamaya. yaa adeegsaday markii ugu horeysay kelmadda argagixiso maxaa sababayse in la adeegsado. kelmaddan markii ugu horeysay waxaa laga keenay Yurub waxaana ku soo beegantay xilligii kacdoonka Faransiiska ee taariikhdu ay ahayd 1790 waxaana lagu hirgeliyay xilliyadii ugu xanuunka badnayd dalka Faransiiska. dadka ku dhawaaqay kelmadda argagixiso ee la xusi karo waxaa ka mid ahaa nin British ah oo la oran jiray Edwin oo dhacdooyinka Faransiiska ee barigaas ugu yeeray argagixisanimo sababtoo ah 1793 ilaa 1794 waxa loo yaqaanay sanadihii argagaxa ahaa ee Yurub soo maray gaar ahaan dalka Faransiiska oo madaxdii barigaas maamulayay ay xasuuqiyo aan kala sooc lahayn ay ka sameeyeen dalka Faransiiska gudihiisa. Cabdirasaaq Jubba, Theater.